السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة مقدشو dadkii eber ayaa looga dhigay tuugadii ayaa soo badatay waxay maraysaa maalin caday in magaalada Muqdisho bartamaheeda ama faras magaalaheeda in dukaamada xitaa inta loo dhaco laga qaato wixii dhex yaala iyadoo bastoolada iyo hub la wato sida muuqaalkan ka arki karto laba nin ayaa dukaankan soo galaysa si fiican hada u fiirisidna mid kamid ah ayaa hubeysan dukaanka waxaa jooga wiil yar oo dhalinyaro ah oo dabcan dukaanka iibinaya ama gadaka ah labada nin ayaa u soo gashay oo hadda aan rabno inay naga caawisaan in hadii la aqoonsado wajiyadooda dadka laga qabto oo aad idinkuna soo sheegtaan xogaheeda ee dadkan la xiriira si gacanta loogu dhigo nimankan sidaad u jeedo muuqaalka si fiican u fiiri waxay rabaan inay wiilkan dhacaan si degan ay marka hore u soo galayaan wiilku waa mashquulsan yahay wuxuu isku dayayaa inuu ma aragtay kala hagaajisto waxyaabihiisa markay u soo galaan si hoosa loogu qabanaa baashi caanka ahayd oo aan laga hadli karin wiilka naftiisa u naxa madaxiisa xitaa hoos u geynaa moobilada nooca ugu qaalisanaa X-Max iPhone 12 Pro hebelo Apple Watch wixii dukaanka yaalay oo dukaankaas normaalmeedka wiilkaas miskiinka ee Soomaaliyeed uu ka raadsanayay cagtay mariyeen waa halisahan ugu dhex jira waxay marayaan maalin caday in la isdhaco maamulkii gobolka Banaadir Mr. Cumar Finish wuxuu haay malaa'ik ninkii amniga ku magacaabna Cali Yare kaliya baraa bulshada ayuu taagan yahay asaga waxa way laamihii amniga oo dhan gaabisa jira shacabkina ebra laga dhigay maanta moobilkaaga kuma badbaadayo dukaanay maray marka hadda awal laamiga ee hadii la isku gaadgaado iyo bajaaj iyo luuq adoo ka baxay laakiin hadda dukaankaaga xitaa lagu soo galaa waa qatar kale weyn dukaankaaga in lagu soo galo waxaagii laga qaato runtii waa halis kale oo aad u daran dadkan hadda wajiyada aqoonsataan labadan qofood hadda arkaysaan waxa la idinka codsanaa inaad dadka u soo bandhigtaan oo si fiican dabcan Soomaali waa wada garanaysaa si la isaga qabto waa maasantii dhamaysta muuqaalka inta ka hartay